assalaamu calaykum. Waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa daawadayaal macluumaad ku saabsan qaaradda Afrika, kaasi oo ah 10 waddan ee ugu dhulka weyn qaaradda Afrika. Waxaanu ka soo bilaabi doonaa nambarka 10aad ilaa aynu ka gaadhayno nambarka 1aad. Nambarka 10aad Mauritania waa jamhuuriyad dhacda galbeedka Afrika, taasoo uu badkeedu yahay 1,030,700 kiiloomitir square ah. Waana jamhuuriyad Islaami ah, waxaanay xuduud la wadaagtaa dalalka kale ah Western Sahara, Mali, Senegal, waxaana ku nool dad lagu qiyaaso 4,526 milyan. caasimadeeduna waa magaalada Nouakchott. Nambarka 9aad South Africa, amaba sida ay Soomaali badan u yaqaanaan Koonfur Afrika, waa dalka 9aad ee ugu dhulka weyn qaaradda Afrika, waana dalka koonfurta ugu xiga qaaradda Afrika. Badkiisu waxa uu gaadhayaa 1,221,000 kiiloomitir square ah. dalkan waxaa ku nool dad gaadhaya in ka badan 50 milyan oo qof. caasimadiisana waxaa lagu magacaabaa Pretoria. Nambarka 8aad Mali waa dal isaguna dhaca galbeedka qaaradda Afrika, waana dalka 8aad ee ugu dhulka weyn qaaradda Afrika. waxaana uu xuduud la wadaagaa dalalka Mauritania, Senegal, Ivory Coast, Guinea, Niger, Algeria, Burkina Faso. waxaanu badkiisu gaadhaa 1,240,000 kiiloomitir square ah. caasimadiisuna waxa weeye magaalada Bamako. waxaana xusid mudan dalkani inuu yahay dal xidhan oo aan bad lahayn. dadka ku nool waddankan waxa lagu qiyaasaa in ka badan 20 milyan oo qof. Nambarka 7aad dalka Angola waa dal dhaca koonfur galbeed qaaradda Afrika. badkiisuna waxa uu yahay 1,246,000 kiiloomitir square ah. caasimadiisana waxaa lagu magacaabaa Luanda. waxaana xusid mudan in waddankan ay luuqadiisu tahay Boortaqiis. dadka ku nool waddankan waxa lagu qiyaasaa in ka badan 32 milyan. Nambarka 6aad Niger waa dal ku yaala galbeedka Afrika, waxaana dhanka waqooyi ka xiga dalalka Algeria iyo Liibiya. xaggan koonfureedna waxaa ka xiga dalalka Benin iyo Nigeria. galbeed Mali ayaa ka xigta, barina Chad. badkiisu waa 1,267,000 kiiloomitir square ah. caasimadiisuna waa Niamey. Nambarka 5aad Chad waa dal dhaca bartamaha qaaradda Afrika. badkiisuna waxa uu gaadhayaa 1,284,000 kiiloomitir square ah. caasimadiisu waa magaalada N'Djamena. waa dalka 5aad ee ugu dhulka weyn qaaradda Afrika. Nambarka 4aad Liibiya waa dal carbeed oo dhaca waqooyiga qaaradda Afrika, waana mid ka mid ah dalalka qaaradda Afrika ugu dhulka weyn, waana waddankii uu madaxweynaha ka ahaan jiray Muammar al-Gaddafi. waddankan caasimadiisu waa magaalada Tripoli. badkiisuna waxa uu gaadhayaa 1,759,000 kiiloomitir isku wareeg ah. Nambarka 3aad Suudaan. waddankani waxa uu soo gelayaa kaalinta 3aad wadamada ugu dhulka weyn qaaradda Afrika, balse mar waxa uu ahaan jiray dalka ugu dhulka weyn qaaradda Afrika ka hor inta aanay ka go'in Suudaanta koonfureed. badkiisa iminku waxa uu gaadhayaa 1,861,000 kiiloomitir square ah. sida in badan oo idinka mid ah ay garanayaanba, caasimadiisuna waa Khartoum. Nambarka 2aad Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waa dal dhaca bartamaha Afrika, waana dalka 2aad ee ugu dhulka weyn qaaradda Afrika. badkiisuna waxa uu gaadhayaa 2,344,000 kiiloomitir isku wareeg ah. caasimadiisu waxa weeye magaalada Kinshasa. Nambarka 1aad Algeria waa dal carbeed oo dhaca waqooyiga qaaradda Afrika, waxaana uu xuduud la wadaagaa dalalka kale ah Morocco, Niger, Liibiya, Tunisia, Mauritania iyo Mali. badkiisuna waxa uu gaadhayaa 2,381,000 kiiloomitir isku wareeg ah. caasimadiisu waa magaalada Aljazaa'ir. Wassalaamu calaykum.